wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtageliyay maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyay la ilaaliyay la xafiday la diyaariyay da'yarta ummadda Soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan u leeyahay waxa cad sida ka muuqata 40 ka dhalinyarada ee halkan hor taagan ee ka shaqeysa miidiyeeda dalkani inuu yahay dal da'yar boqolkiiba 80 dadkiisu waa da'yar weeye macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadka wax loo gashado dhalinyarada ah buu aayaha dalkana noqonaya tacabka la geliyo sida loo diyaariyo sida loogu tabco wax loo baro loo dhiso jid iyo maskaxba ayaa ayahoodu noqonaya si dhow baan ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore dawladdii hore tii ka horeysay ilaa tan ama geedi socodka waxbarashadaba waxa hubaala maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka Soomaaliyeed ay kordhayso waxa hubaala in tayada macallimiintu iyo tiraduba ay kordhayso sida aad ogtihiin in dhawaan la qaatay 3,000 laguna tala jiro in 10,000 oo kale la qaato waxa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka Soomaaliyeed baran kara inay maalinta ka dambaysa isa sii bedelayaan lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira walaalayaal Soomaali meel ay joogtaba waa inay ogaato aayaheenu inuu ku xidhan yahay sida aynu u dhisno khayraadka dadkeena human capitalka waxa la yiraahdo markaas baynu kalluunkana daban karnaa oo iib geyn karnaa beerahana falan karnaa tabarna dhalin karnaa wadooyinkana dhisan karnaa cimilada isbedelkeedana la falgeli karnaa adduunweynaha iyo dalalka dhigeena la tartami karnaa maalin dhaweyd waxa dalka Soomaaliya uu qayb ka ahaanayay urur dhaqaalaha Afrikada bariga East Africa Economic Community ayuu qayb ka noqonayay ergo 100 qof ku dhow oo ka kala socota dalalka iyo ururka ayaa dalkan yimi waxa loo yeedhay howlwadeennada Soomaaliyeed ee wasaaradda walba ka socota shaqada ta waxbarashada ta ganacsiga halka waxa laga cabirayay dalka Soomaaliyeed dad ahaan ma u diyaarsan yahay inuu adduunka la macaamilo waxna ay kala iibsadaan waxna soo wada saaraan marka si aynu horumar uga sameeyno meel walba oo suurtagal ah waa muhiim inaynu da'yarteena wax barno waxyaabaha aan wasiirka ka falanayno haddana uu gacanta ku hayo waxa kamid ah in dad xeel dheer lagu eego sidii loo kobcin lahaa loo tayin lahaa waxbarashada ummadda Soomaaliyeed xukuumaddan sida goobo fara badan baan ka sheegnay daryeelka bulshada oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadku wuxuu u yahay udub dhaxad waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta waxaan u maleynayaa 30 iyo 50 goobood oo dalka ah 114 iyo 4 goobood oo dalka ah ku gelaya doorashooyin ku gelaya imtixaanaadka in aan halkan uga ducayno dhiiri gelino garabna taaganahay markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare u sii wadi lahaayeen waa qorshayaasha diyaarka nooca waxaan rabaa inaan si gaar ah maanta fursadan uga faa'iideysto inaan u mahad celinno muwaadin walba Soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo sida ay oran jirtay heestii macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhalinyarada waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda Soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa loo beli lahaa laga shaqeeyo guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ardayda ah ee maanta imtixaanka maraysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Imtixaankuna waa free.